بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا معد كسبين وعرنا إن شاء الله دالي لهذا بوغاني معاميشة وناجنت معاميشة أيان ربنا مانت نسي ودنا جبتر كلا أيان ربنا مانت إنان كهدلنا وحالها واكوما معاميل كاغا يعني واكوما معاميل وصبرنا معاميل وقف وحكاغتا أما وقف كلا معاملة أما وهيئة أما وشركة أما وبهركي أها قف أود له إنه أديجاجا استعماله ما أنتوا عن قادنا إنها ده الله إنه واكوما معامل كاجا ورت هدي الشركة هاي أما هدي أتقف وحاجتها شركة دوها شركة صال بربرت الشيبة أما هاتو شركة لوقف في واحد بدنا إلين هاتو أما هاتو شركة ملتي شركة أو معناها ليميتد أو قف كإسكالة أما ضدك إسكالة عن لو سر عنين هدي أي خسارته أما هدي أي بانكرابس كلها مركا واحد هنا هرتا واكوما معامل كاغا شركة دادا يا معامل شركة دادا وحا معامل يا معامل كاغا واي سؤال ساس واي جوابته ugu fiican waxa waa dadka oo dhan macamilkaaga sideedaba hadii adiga wax gadaysid waxa aad gadaysid ha ahaadaan badeeco ama ha ahaadaan adeeg aad dadka siinayso oo laga gato ha ahaadaan dadka oo dhan ayaa waxay yihiin macamilkaaga dadka dhan ayaa waxay yihiin macamilkaaga waxay u qaybsamayaan marka labo dad wixii awooda oo isticmaala oo waxaagii haysta iyo dad aan wixii awoodin oo macnaha tawar aan u haynin iyo dad tawar ha u haayaan laakiin ay saameysay adeegaagii ama coverage-gaagii aan gaarin ama bahalkii ahaa meel kale kaaga maqan yihiin oo shirkad kale oo tartan kaaga maqan yihiin waxay rabaan ha ahaadaan laakiin ahmiyadda ugu weyn waxa waaye macaamilku waa dadkaaga oo dhan qof kasta oo soo gaaray level oo badeecadaada ku gato ama ha isticmaala hadda oo ha gato ama yoos isticmaalana awoodeedii uu leeyahay sabab uu kaaga maqan yahay waa macaamilkaaga waa ya marka waxa waaye jawaabtu waxa waaye qofka dadka oo dhan waa macaamiishaada waa shakhsi ama shirkad ya waa shakhsi ama shirkad kuwaas oo isticmaala ama hela akhbaar ku saabsan badeecadaada ama adeega aad bixino okay taas ayaa la yiraahdaa macnaha waa shakhsi waa noqon karaa shirkadna waa noqon kartaa adeegaaga isticmaasha ama badeecadaada gataan okay marka kaas ayaa la yiraahdaa macaamil aad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeeynaa maanta insha Allah waxaan rajaynaynaa in wax badan ka faa'iido doontaan